marka hore walaalka qaaliga ah waan ku salaamay, waxaana kugu salaamay salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaam, waxaan ku wadaa hadiyad duco ah oo wax ka qaalisanaysan jirin. hadiyaduhu way fara badan yihiin, midba midda kale way ka qaalisan tahay, laakiin anigu waxaan kuu wadaa hadiyad duco ah taas oo qaaliya, taasoo haddaad ku ducaysatid aakhiriya adduunba aad liibaanayso, aadna ka badbaadayso waswaaska qalbiga kaa soo gala iyo qalbigaada nasasho la'aantiisa, iyo unu qalbigaadu xasili waayo. ducadan haddaad ku ducaysato ducadaada waa la aqbalayaa, cabsida ilaahayna way kuu koraysaa, khushuuca ilaahay aad u khushuucisana way kuu koraysaa, naftaaduna mid dhergan oo qanacsan bay noqonaysaa. cilmigaaga aad barato maadi iyo diini mid kasta ahuna midku anfucu noqon doonaa. haddaba walaal ducadii waa tan, waxaa leedahay marka koowaad: allaahumma innii acuudu bika min qalbin laa yaqshac, wa min ducaa'in laa yusmac, wa min nafsin laa tashbac, wa min cilmin laa yanfac. macnaheedu waxaa weeye allaahumma acuudu bika, waxaan kaa magangelayaa min qalbin laa yaqshac, wa min ducaa'in laa yusmac, duca aan la aqbalina waan kaa magangelayaa, wa min nafsin laa tashbac, naf aan dherginna waan kaa magangelayaa, wa min cilmin laa yanfac, cilmi aan la anficinna waan kaa magangelayaa. mar haddiisan naftu aysan lahayn khushuuc oo ilaahay aysan ka cabsanayn ama khushuucaynin, waa naf halaagsantay. haddii ducadaadaan la maqlinna oon la ajiibin, ducadaadu waxay noqonaysaa inaad gacmahaada kor u taagto oo keliya. naftaadu haddaysan qanaaco helin, wax kastoo la siiyaa kuma qancayso. haddaan ilaahay uusan qanaaco uusan ku siinin, maal adduunya haddii lagu siiyo qanci maysid, wax kasta haddii lagu siiyo ma qancaysid, laakiin ilaahay xaggiis ayaa laga weydiisay inaad qanaaca ka heshid. cilmi aan la anficin ama aan ku anficin ama aan bulshada kale anficinna wax faa'iidaa kuuma lahan. ilaahayna waa laga magan galaa in cilmigaagu oo ufaad ummadda kale anfici waayo, adigana uu ku anfici waayo. walaal ducadaas yartaa ee kooban ku ducayso, dadka kalena bar una gudbi walaalaha kale si ay uga faa'iidaystaan. walaal haddaad ka faa'iiday, ummadda kale u sii gudbi si aad ajir fara badan aad uga hesho. adigana ku ducayso xilli walba oo salaad tukato iyo xilli walba oo dan leedahana ku ducayso. insha allah waa ku anfici doontaa. waxaan kaaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.